يعني عيدنا كم حكتو تلادة iyo manfaceeda iyo arrinkeeda siyaasiyiina oo waliba xilal muhiim ah ka haya dalka waxaanu arkaynay niman xildhibaan ah oo golaha wakiilada kamid ah oo ayaamahan bas maartay fool xun u hadlayay oo wax xoqayay oo qabyaalada abuurayay oo kicin hadalla kicin loo arkayo ku hadlayay markaa dadkaas u sababa inay dadku mudaharaadaan dadkaas u turjumay ummadda waxa khaldan kii Somaliland aan maxaan ku raallida ka ahayn markaa ma waxaad leedahay reer awdal Somaliland raalli kama ay ka mudaharaad xoog la shilsmiyay ma reer xildhibaanada ah xildhibaanada soo ma metelaan reer awdal oo ma aha xildhibaanada ay soo doorteen codkoodina soo ku hadli maayaan suldaan oo Soomaalnimo shar qabiil loo xiriyo ayaa doonay Soomaaliland lagu la dagaalamo haddana dagaalka ugu xoogan taa ay ku socdaan tamaamsantay afarta qof ama boqolka qof ee la soo ururiyay mudaharaadaya sida khaldan wax u fahmina xaqiiqada way ogaan doonaan dawadayaal kula wacana wanaagsan aniguna Cabdiraxmaan Jumban ahay barbarkayga wax fadhiya Suldaan Ibrahim oo kamid ah salaadiinta Somaliland suldaan waxa la socota xaaladda Somaliland kadib heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia ay galeen in deegaano badan oo Somaliland heshiiska laga soo dhaweeyay halka dhinaca kale deegaanka amba gobolka awdal magaalada madaxdiisa Boorama shalay mudaharaad weyn ka dhacay sidoo kale dawladda Soomaaliya ay si weyn heshiiskaas dagaal xoog leh ay ka gashay oo dhinaca miidiyaha iyo dhinaca diblomaasiyadda ah arrimahaas oo dhan ilaa hadda saad u aragtaa ay soo socdaan bismillaah waa si fiican horta waxaan u kala qaadaynaa saddex qaybood ama saddex nooc baynu kala maxaan ku dadka ugu kala fasilaynaa mid waa heshiiska ay soo galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed midna waxa weeyaan maxaan ku raahdaayay heshiisku waxa ma dhul lagu qaadan karo ama dhul lagu yeelan karo ama maxaan ku leeyahay cidda ay qusayso heshiisyadani inay go'aanka ugu dambeeya yeeshaan midina waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa mudaharaadyada iyo waxyaabaha dhacaya iyo xaaladahan ama Soomaaliya waxa marka ugu horeysa horta haddaan si kooban aan isku dul taago madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland markii ay soo wada hadleen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waa kuwii noo yimi waynu soo dhaweynay wuxuu inoo sheegay madaxweynuhu inay ka soo wada hadleen ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Muuse inay ka soo wada hadleen base laga siin doono maxaan ku leeyahay xeebteena ama xeebaheena meel kamid ah taasoo cayimeen ilaa 20 kilomitir hawshaasi may ahayn heshiis waxay ahayd wada hadal waxaanu madaxweynuhu inoo sheegay inay ku kooban yihiin 8 qodob 8 qodobna ay mari doonaan nidaamkii iyo qawaaniintii dalka u dejisnayd oo ay tagi doonaan golayaasha maxaan ku aday golayaasha xeerdejinta ama golaha baarlamaanka oo dhanba markaa waxa weeyaan waxa arinta wali ka soo baxay oo ka cadaaday oo imika la naaqashay ma jirto madaxweynuhu sidoo noogu sheegay 8 qodob ka wada hadleen heshiiska arinta ay ka wada hadleen ay heshiiskeedu mari doono sidii sharcigu ahaa baarlamaanka uu mari doono iyo cidii kale ee dhamaan ay qusaysay ee qarankaba wali cid sariftay ama cid maxaan ku leeyahay 8 qodob naaqashtay oo ummadda u sheegtay oo inay khalad ku jiro iyo inay saxtay inay khalad tahay ma jirto marka waxa weeyaan waxa laala wixii imika deeg intaan la fasilin ama aan la akhriyin ama aan golayaasha marin waxa laala wixii 8 qodob laga sii sheega ama wixii waa mala awaalun iyo maxaan ku leeyahay propaganda marka anigu waxaan horta leeyahay heshiiskaasi waxaan sugaynaa marka ay golayaasha tagaan heshiis ma hadee yaani qodobada wada hadalku marka golayaasha tagaan waxay golayaashu ka soo saaraan ama waxay ummadda u sheegaan baynu sugaynaa cidda aan arinta ka sii degdegtaana waa cid ka hor dhacaysa ama cid ujeedo kale leh oo doonaysa in ummadda si kale ugu fasisho taasi waa taa haddii aan ku soo noqdo maxaan ku haday dhulkan Somaliland iyo cidda leh iyo cidda ka goodo iyo cidda bixin karta
horta waxa weeyaan dalka Soomaaliya waa 5 qaybood bay ahayd qayb waliba waxeeda afartii qaybood kaleba dee go'aankooda iyo masiirkooda iyo maxaan ku heshiisyadooda iyaga sameystaa cidina inagalama tashado kuwa Kenya inagalama tashadaan kuwa koonfurna inagalama tashadaan imika ku doodaya inay dalka la leenay haddii dalka la leenay tooda inagala tashan lahayn kuwa NFD iyo kuwa Ethiopia iyo kuwa Djibouti midnaba cidnaba inagalama tashato teena inay yiraahdaan waanu idin kala talinaynaa ama teena inay yiraahdaan anaga go'aankeeda leh dee waxa weeyaan taasi waa waxaan suuragal ahayn Soomaaliyana inagoo laba ummadood baynu isku biirnay oo laba xuduud kala leh oo aan maxaan ku isku dalahayn ayaynu isku biirnay marka waxa weeyaan dee sideen u kala guran lahayn inagu ayuun baa inoo qosaysay inama qosayso inay inoo calaamadiyaan ama ay yiraahdaan waanaga go'aankiina leh maaha taas wax ma artay jira maaha waana iska sheeko inagu Soomaaliya wali waxaynu iskugu jirnaa sideen u kala guran lahayn sideen wixii maxaan ku dhahdaayay inaga dhaxeeyay ama deyn ha noqoto ama dunya ha noqoto ama maxaan ku dhahdaayay nidaamyadii qarannimadii hore ee Soomaaliya dhexdeena yaalay inaynu kala guranno laakiin dhulka mana wada lihin kamana wada talin karno kamana wada tashan karno go'aanka Somaliland inaga iska leh markaan taa ka imaado dalkan Somaliland de malaha isaaq malaha samaroono kaliya malaha ciiso kaliya malaha daarodo kaliya malaha dalkan waxa la ilaahay wuxuu ku beeray ee yaalay markii uu Ingiriisku dhulkan qabsaday dad buu ugu yimi dadku intan ma leekan way yaraayeen way koobnaayeen inta ugu badani dadka maanta Somaliland ku abtirsada inta ugu badan xuduudda uu Ingiriiska sameeyay kama baxsanayn waxay ka baxeen waqtigii dambe 60-yadii la batay ee dawladnimada la helay ee dadkii bateen ayaa xuduudan uu Ingiriisku sameeyay laga baxay isaaqo iyo maxaan ku leeyahay dhulbahantaha ama warsangal dadkan oo dhani waxay ku jireen xayndaabkii Ingiriisku jeexay kadib ay dadku de kordheen oo dib ay Ethiopia galeen waxa kale jiray ummado badan oo imika Ethiopia xoogoodu galeen oo reer Somaliland ku abtirsada Charsa kamida Gurgura kamida Akisha kamida intaas oo qabiil ba kamida waxa weeyaan dadka ku abtirsada Somaliland qaar baa faramo ku hadla imika marka waxa weeyaan afku deemu bedelay imika waxa jira isaaq Ingiriis ku hadla mid Talyaani ku hadla mid maxaan ku Chinese ku hadla intaas oo ummadood baa jira oo luqado kale ku hadla oo dadkeena ah oo inagu naga soo jeeda ama intaasoo qof oo ama qoys oo luqado kale ku hadla jira marka waxa weeyaan dadku halkan ay leeyihiin waa Oromo de Charso Oromo maaha ama Afrooma ku shaqama Soomaaliya ku hadashay Charso waa Somalilander waa sida isaaq oo kale ayuu Ethiopia u baxeen markii hore waxay ahaayeen dadyowga xoog u degan bay ahaayeen maxaan ku leeyahay Somaliland gurgu maxaan ku leeyahay Akisho kale sidaas oo dadka miisaanka weyn ku degan buu ahaa Somaliland maantana Somalilandnimada cid kama saarayso waxaana Somaliland u diiwaan gashan dhammaan qabaa'ilkii ama beelihii ugu yimi Ingiriisku ee ku jira xayndaabka Somaliland ayaa Somaliland u diiwaan gashan marka taas dadkaasaana wax ka go'an ninna madaxweynena ma iibin karo kooxna ma iibin karto waxa weeyaan waana iska propaganda waxba la iibiyay waxa weeyaan madaxweynuhu sidoo inoo sheegay base buu ka wada hadleen xaqiiqaduna waa base kaanu sidaan aaminsanahay mudaharaadkii ka dhacay maalintii shalay magaalada Boorama iyo wasiir kamid ah wasiirada xukuumadda Somaliland iscasilay oo ka soo jeeda deegaanka Saylac iyo lugahey deegaanadaas oo sheegay arinta darteed inuu isku casilay kadib markii arintaas madaxweynaha uu kala hadlay madaxweynuhuna ay isku fahmi waayeen baliyada taas oo horta anigu de isfahmi wogooda maan dhex joogin xogaga la kameeyay taa kama maxaan ku ahday de ma turjumaya ama kama hadlayo laakiin iscasilaadiisu xubay la mid tahay wasiiradii iscasili jiray ama arinta ku sababeeyo ama wuxuu doonaa sabab wasiirku markuu iscasilayo de wuxuu isku casilaa sababtu isku casiliyana isaga macneeya hadii uu isku casilay arimaha maxaan ku ahday base-ka la bixiyay uu isku casilay ama uu la daran yahay dadka mudaharaadaya waa la midun dadku buu la mid yahay wax macno oo weyn oo ku jira iscasilaadiisa ma jirto waa nin xilkii uu hayay ummadda u hayay uun iska casilay waana dhacdaa mar iyo 2 iyo 3 kun jeer horeba way dhacday
waxaan weeyaan markaa taasi anigu wax weyn oo ma arko taysacsilaadiisa wax weyn uma arko nin hawshaasuna adigu ama ha isku garan waaye ama wax kale ha jiraan ama sidaa uu sheegayaaba markaa haddii aan taasi waa taas taysacsilaadu dee waxa weeyaan waa halkaasaan ku dhaafayaa waxaan u gudbayaa ta mudaharaadka horta mudaharaadkan dee dadka maanta dadkii aragtidoodii ma bisla ama waxyaabo badan uma muuqdaan dadkii dad baa khaldaya dad baa maxaan ku dhahdaayey si kale u kicin kale ka wada runtii anigu dadka mudaharaadaya waxaan u sababaynayaa niman siyaasiyiina oo weliba xilal muhiima ka haya dalka waxaynu arkaynay niman xildhibaano ah oo golaha wakiilada ka mid ah oo ayaamahanba si maaragtay fool xun u hadlayey oo wax xoqayey oo qabyaalada abuurayey oo hadalla kicin loo arkayo ku hadlayey markaa dadkaasaa u sababa inay dadku mudaharaadaan dadkaasaa u turjumay ummadda waxa khaldan xildhibaanka xeerarkan iyo waxan iyo qodobyadan laga soo wada hadlay ay mari doonaan ay isaga hortagi doonaan ee doodeeda iyo naaqashkeeda iyo wax ka bedelkeeda iyo aqbalaadeeda iyo diidmadeedaba lahaa isagoo oo aanay gaadhinba ama aanu isaga maxaan ku golihiisiiba imanin ama aanu akhriyin ummadda propagandada iyo khaladka maxaan ku uga sii sheekaynaya ee kicinaya horta sababta oo dhan kaasaa leh waxaanan leeyahay arrintan aniga oo aan hubin waxa ay tahay haddana waxaan inuu wanaag ku jiro waxaan ku dareemayaa waxa sugi waayey dadkii Somaliland aan maxaan ku raallida ka ahayn marka ma waxaad leedahay reer awdal Somaliland raalli kama ay ka mudaharaad xoog la shilsmeeyay reer awdal maaha reer awdal boqolkiiba waa Somaliland waana dad Somaliland dara waana dad maxaan ku dhahdaayay Somaliland dad badan oo dadka ugu wanaagsan ugu jecel weeyaan laakiin waxaan leeyahay nimanka xildhibaanada ah xildhibaanada soo metelaan reer awdal oo maaha xildhibaanada ay soo doorteen codkoodina soo ku hadli maayaan suldaan waxay metelaan qaranka oo dhan waxaanay marka hore horta qaranka oo dhan bay metelaan marka labaad waxay wax ku metelaan waxa weeye markay wixii ay ogaadaan wuxuu yahay ninka xildhibaanka ah ee aan ogaanin waxan wuxuu yahay iminka propagandada si sameynaya ee reer hebel dadku kala qaybinaya waxaan aaminsanahay nin abuuraya colaad iyo nacayb ummadan dhexdooda ah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doonin taa waayo sababtoo ah dadkani waa dad ehela waa dad dantooda maanta ilbaxo garanaya afarta qof ama boqolka qof ee la soo ururiyay ee mudaharaadaya sida khaldan wax u fahmina xaqiiqada way ogaan doonaan waxaad ogtahay Soomaaliya in hore Kenya bad loogu saxay waxyaabo hore badan Soomaaliya ay ka dhaceen marna reer Soomaaliland kama qaylin laakiin heshiiskan hadda dhacay dagaal xoog leh ayay Soomaaliya guud ahaan ku wada Soomaaliland iyo heshiiskaba maxaa sababaya dagaalka inta la gii heerkulku inta inuu halka gaaro way kala duwan tahay labadanis taas waxa ay dhul ama xuduud Kenya ku soo xadgudubtay oo ay doonaysay inay qaadato tanina waa base heshiis iyo maxaan ku ay shuruudo ku xiran taasi de waxa weeyaan dhul bay doonaysay oo taas in laga inay ama koonfuridido ama inaguba de walaalaheena Soomaaliyeed u heelino inuu la diidno waa wax saxan laakiin tani waxa weeyaan horumarin in dadkan diidana waa dad ka xunuun horumarinta Somaliland haddii ay waxa weeyaan dhul laynaga qaadaya ma jirto dhul laynagu haystaa ma jirto dhul laynaga qabsaday ma jirto innaga ayaa heshiiska la galay innaga ayaa wada hadalka la galay innaga naaqashayna heshiiskeenii waxaynu ku heshiinayno xasan wuxuu taagan yahay xasan sheekh maxamed madaxweynaha Soomaaliya heshiis ma geli kartaan waxaan ugu saxiixina ma saxiixi kartaan qalinkiinuna ma shaqeynayo hadaatiin reer Soomaaliland taasi waxa weeyaan qalad isaga uu aaminsan yahay cidda maaragtay arrinta la qabtaana waxa weeyaan dhamaantood waa qalad ay aaminsan yihiin xasan sheekh halkan kamana taliyo waxna kama aha mana laha waxa weeyaan waa dal laba xuduud u dhaxayso waxa weeyaan inagu waxbaynu saan horeba hadalka ku idhi inagoo laba dawladood baynu wax isku darsanay isaynu kala guran lahayn baynu falogada qabanna laakiin isagana dhulkiisa isaga xor ah wuxuu doonana bixiyo ciduu doonana keeno intaasoo dawladoodna keenay inaguna inaga keeno oo xor ah laakiin waxa weeyaan wixii shuruuc ahaan
soomaalinimadii hore inaga dhaxeeyo baynu ka wada hadlaynaaye tan hadduu maanta madaxweyne muuse biixi maraykan la heshiiyo hadduu jarman la heshiiyo hadduu etoobiya la heshiiyo hadduu jabuuti la heshiiyo madaxweynaheenna xor u ah innaguna waxa weeyaan wuxuu kula soo heshiin baynu waxay koonfurta Soomaaliya dadweynaha koonfurta Soomaaliya ay leeyihiin Soomaalinimadii bay ka baxeen dhulkana Soomaali ayaa leh sida sheegayaan ayagu 200 milyan oo oramaana waa la keenaya arrintan waanu ka dagaalamayna ay taageed sultan taas oo waxaan ku sheegayaa haddii maxaan ku dhahday oramadu kuwa oramadu leeyahay hadday muwaadiniin yihiin muwaadiniin afarama ku hadlo Soomaaliland daro xaq u leh inay muwaadiniin yihiin haddii yihiin way imanayaan iyaga markaa muwaadiniinta qaar oramada qaar badan kamid ah muwaadiniin ah oo uga dhow Soomaalida kale Soomaaliland oo muwaadiniin ah dabcan waxa weeyaan xuduudda Soomaaliya wixii xuduudda Soomaaliland ku jiray waqtigii Ingiriiskii waa muwaadiniin waxaana le dalkan dad la yiraahdo dir waqooyi dad dir waqooyi la yiraahdo dir waqooyi wuu fara badan yahay waanu batayo qaar ba Itoobiya galo luqadi Oromo ku hadla qaar ba Yurub iyo Mareykan galo luqad Ingiriis ku hadla waxa weey ninka Ingiriiska ku hadlaya ninka maxaan ku raadayeen Faransiiska ku hadlaya Somalilanderka halkan u dhashay de Faransiis ma noqonayo markuu soo noqdo luqad Faransiis u bartayna kama dhigayso maxaan ku raahday kama kaxaynayso inuu Somaliland noqdo marka waxa weeyaan dalkan way diiwaan gashan yihiin qabaa'ilkii deganaa cid kastoo qabaa'ilkii deganayd ahina ama aframaha ku hadasho ama afjaynaha ku hadashay waa Somalilander waxaana weeyaan cidina kama xigto taladeeda iyo manfaceeda iyo arrinkeeda sultan su'aasha ugu dambaysa dad badan waxay leeyihiin dadka koonfurta Soomaaliya jooga Soomaalinimadan imika la sheegayo horeba looma sheegi jirin ee qabiil ayaa ku dahaaran oo Soomaalinimo shar qabiil loo xiriyo ayaa durismaan in lagu la dagaalamo haddana dagaalka ugu xoogan taa ay ku socda tamaamsan horta inaga iyo Soomaaliya laba dawladood baynu kala la iskuma qaldi karo ummadana ayaan khalad la fahamsiin laba xuduud baynu kala waxbaynu isku darsanay haddii ay qabaa'il yihiin qabaa'ilka intii halka degaysa Talyaaniga xuduudda Talyaaniga deganaan jirtayna waxa weeyaan Soomaali intii xuduudda Somaliland deganaan jirtayna waa Somalilander waxa weeyaan kuwa Kenya galay ee xuduudda Talyaaniga deganaan jiray Kenyati ma aha waa Soomaali bay noqonayaan reer Muqdisho iyo reer Baydhabo reer Kismaayo bay noqonayaan iyo reer maxaan ku raahday Garowe halkana waa sida waxaan ku sheegayaa Soomaalidu Ethiopia Djibouti waa Soomaali oo Ethiopia waa Soomaali oo Kenya waa Soomaali oo kuwa Muqdisho kulli oo kuwa koonfureed waa Soomaali marka waxaan ku sheegayaa Soomaalidu waa dad badan laakiin xuduud bay kala leedahay cid waliba dawlad bay ay xuduud la lahayd waqtiyadii gumaysigii cid waliba halkay deganeed ba xuduud looga dhigay cidii ay la deganeedna way la tahay inagu haddaynu nahay Somaliland ama dir waqooyi aynu ahaano ama daarood iyo harti qaybo kamid ha ahaato ama ummado kale aan labadaba hayno inuu dhex jira hata wixii Somaliland xuduudeeda ku jira waqtigii gumaysigii waa Somalilander ama Ethiopia ha galaan ama Kenya ha galaan ama Yurub ha galaan ama meesha doonaan ha galaan waxay ku abtirsanayaan mar haddii ay qabaa'ilka ka soo jeedaan Somalilander ummadana waxaan leeyahay yaan la khalkhalin Xasan Sheekh ee dawladda koonfureedna waxaan leeyahay waxa weeyaan shuruucayno kala yaala baarlamankii aynu wada lahayn shuruuca yaalay adduunyada iyo caalamku xeerarka ay noo kala qoreen maalinta aynu isku biirayno shuruuda yaala wax walba shuruuc baa taala wax walba dib baa loo raacaya marka ha ka soo xadgudbina ummadana khalad ha u sheegina annagana hana dhibaataynina wasalaam calaykum oramadu leeyahay hadday muwaadiniin yihiin muwaadiniin afarama ku hadlo Somaliland daro xaq u leh inay muwaadiniin yihiin haddii yihiin way imanayaan iyaga markaa muwaadiniinta qaar oramada qaar badan kamid ah muwaadiniin ah oo uga dhow Soomaalida kale Soomaaliland oo muwaadiniin ah dabcan